Bismillahirrahmanirrahiim waxaana wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa channelkeenu ku leenahay YouTube-ka ee tubta wararka waxa aad ku soo dhawaataan warbixin gaar ah oo aan diradda ku saari doono xaaladihii ugu dambeeyay ee dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo sidoo kaleba Ukraine warbixinteena daawadayaal waxaynu ku eegi doonaa 8 qof oo lagu dilay bariga Luhansk ee Ukraine Ruushka oo xasuuq aan loo meeldayin ka geysanaya magaalooyinka ku yaala Ukraine iyo caruur si arxan daro ah ay u dileen ciidamada Ruushka dhaawac ayaa loo geystay caruurta qaarkoodna waa la dilay boqolaal ayayna tirada sii cagacageynaysa warbixinteena ayaa daawadayaal kaga bogan doontaan xogo iyo macluumaad wararkii ugu dambeeyay ee leelayo isla markaana soo gaaray warqabadka tubta wararka Mareykanka oo ku biiray dagaalka Ukraine iyo Ruushka waliba wacd ku maray in Ukraine ka saarayo kuwa soo weeraray ee Ruushka ayaa sidoo kale daawadayaal soo qaadan doona aqalka cad ayaa sargaal howlgab ah waxa uu u magacaabay isu duwidda kaalmada military ee la siinayo wadanka Ukraine ee weerarka gardarada ah lagu soo qaaday halkan ayaa daawadayaal idinku soo gudbi doona macluumaad iyo xogo hadba waxa laga helayo dagaalka u dhaxeeya Ukraine iyo sidoo kale Ruushka soo dhawaada daawadayaal saaxiibayaal halkan waa tubta wararka aynu ku leenahay YouTube-ka muuqaalkan like saar siina share garay daawade inagu soo biir subscribe inoo saar channelka fura gambaleelka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaalada aynu halkan ku soo baahino waa ku maasantahay daawade la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba markana aan ku bilaabo 8 qof ayaa lagu dilay bariga Luhansk ee wadanka Ukraine 8 qof ayaa ku dhintay laba kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeymaha Ruushka ee bariga Luhansk ee wadanka Ukraine sida uu sheegay madaxa gobolka Serhiy Haidai qoraal uu soo dhigay Telegramka ayuu ku sheegay in 6 qof ay ku dhinteen duqeymo sabtidii shalay ka dhacay magaalooyinka Helsinki iyo sidoo kale Zolota dhinaca kale 2 qof oo labaduba dumar ah ayaa meedkooda laga helay guri burbure oo ku yaala magaalada Bobasna kaas oo dhowr maalmood ka hor lagu garaacay gantaalo Haidai ayaa sidoo kale sheegay in xafiis booliis oo ku yaala magaalada Severodonetsk la burburiyay horaantii toddobaadkan Ruushka ayaa sheegay in uu hadda diiradda saarayo howlgalkiisa military si uu u qabsado Luhansk iyo gobolada deriska la ah ee Donetsk kadib markii uu ku guuldareystay Ruushku in uu qabsado waqooyiga Ukraine oo ay ku jirto caasimadda dalka ee Kiev dagaalka ayaa sii kordhaya waqtiga ka sii dambeeya reer galbeedka ayaana waxa ay ka bixi laayihiin in ay dhinacyada ugu baaqaan in ay dagaalka istaajiyaan si loo baajiyo dhiigga daadanaya iyo sidoo kaleba dadka ku dhimanaya dagaalka markaana daawadayaal aqalka cad ee looga arrimiyo Mareykanka ayaa generaal howlgab waxay u magacaabeen isu duwidda kaalmada military ee uu dalka Mareykanka siinayo wadanka Ukraine ee weerarka gardarada ah lagu soo qaaday General Terry Wolof oo dhawaan ka mid noqday golaha ammaanka qaranka Mareykanka ayaa khibrad u leh howsha loo igmaday sida ay sheegeen dadka aqoonta u leh ninkan waxa uu taliye ku xigeen u ahaa isbahaysigii jabiyay Daesh waa qofka ugu wanaagsan ee lagu aamini karo howshan ayuu sargaal aan magaciisa la shaacin u sheegay telefishinka CNN ma aha mid gaar ah balse waa walaac uu qabo caalamka oo dhan waxaa suuragal ah in xogtaas ay dhabtahay ama ay noqon karto mid been ah ayuu yiri ma aha in aan cabsano ee waa in aan diyaar garowno arintan uma taalo Ukraine oo kaliya ee waxa ay qusaysaa caalamka oo dhan ayuu hadalkiisa raaciyay bishii la soo dhaafay afhayeenka Kremlinka ayaa sheegay in Ruushka uu adeegsan doono hubkiisa nukliyeerka marka uu dareemo khatar ku aadan jiritaanka dalkiisa mar wax laga weydiiyay madaxweyne Volodymyr Zelensky markabka dagaal ee Ruushka laga dejiyay Moscow ayaa waxa uu ku jawaabay in uu ahaa khatar waxyeelo badan u geysatay dalkiisa markasta oo uu yaraado hubka uu Ruushka ku weerarayo dalkeena waa mid noo wanaagsan ayuu yiri madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky
waxa uu tibaaxay in ugu yaraan 3,000 oo askari ay dalkiisa uga dhinteen dagaalka tan iyo markii Ruushku bilaabay duulaanka, halka dhaawacana uu kor u dhaafayo 10,000 oo askari. Ukraine ayaa dhowr jeer sheegtay in Ruushka ay ka dishay askar kumanaan ah, sheegashadaas oo aan si dhab ah loo xaqiijin. Mareykanka ayaa doonaya in Ukraine ay hesho hub ku filan xilligan oo uu meel adag marayo duulaanka Ruushka, isla markaana ciidamadiisa ay dagaal saf ballaaran ka wadaan bariga iyo koonfurta dalka Ukraine. Ruushka ayaa toddobaadkii hore si rasmi ah ugu digay Mareykanka iyo xulafadiisa hubka ay ku taageerayaan waddanka Ukraine. Qoraal diblomaasiyadeed oo ay Moscow u dirtay Washington oo nuqul ka mid ah ay darseen warbaahinta Mareykanka ayaa lagu sheegay in hubka lagu taageeray Ukraine ay ka dhalan karto cawaaqib aan la saadaalin karin. hubka ay Mareykanka iyo xulafadiisa NATO siinayaan Ukraine waxa uu sii horinayaa dagaalka, waxaana ka dhalan karta cawaaqib aan la saadaalin karin, ayaa lagu sheegay warqadda labada bog ah ee uu Ruushku diray. qoraalka oo la diray Talaadadii ayaa ku soo beegmay xilli ay soo baxeen warar sheegaya in Mareykanka uu taakula military oo dhan 800 oo milyan oo dollar uu u dirayo Ukraine. waxaa hubkaasi ka mid ah madaafiicda goobaha fog duqeeya si xukuumadda Kiev ay ugu babac dhigto awoodda military ee waddanka Ruushka. sargaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in digniinta Ruushka loo fasiran karo in kaalmada military ee la siiyay Ukraine ay wax badan ka tartay furimaha dagaalka. kaalmada military ee Mareykanka ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay gaarto waddanka Ukraine, xilli ciidamada Ruushka ay isku urursanayaan bariga dalkaas si ay duulaan ballaaran ugu qaadaan gobolka Donbass toddobaadyada soo socda. tan iyo markii uu bilowday duulaanka waddanka Ruushka, Mareykanka ayaa dhaqaalo dhan 3 bilyan oo dollar ku bixiyay taakulada military ee uu siiyo waddanka Ukraine. in caalamka uu u toghayo suuragalnimada in Ruushka uu duqeyn nukliyeer u adeegsan doono dalkiisa. Zelensky oo u waramay telefishinka CNN ayaa sheegay in walaac xoogan uu ku abuuray hadal uu sheegay agaasimaha CIA-da oo tilmaamay in Ruushka uu si xeeladaysan hubka nukliyeerka ugu adeegsan karo colaadda ka holceysa waddanka Ukraine. dhinaca kalena daawadayaal, Ukraine ayaa sheegtay in ka badan 200 oo caruur ah lagu dilay duulaanka uu soo qaaday Ruushka isla markaana ka soconaya waddanka Ukraine. duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa lagu dilay 213 caruur ah, halka 389 kalena ay ku dhaawacmeen, sida uu sheegay xafiiska dacwad oogaha guud ee waddanka Ukraine. si walba oo ay ahaato, dagaalka ayaa sii karaar qaadanaya, marxaladda ayaa sii cuslaanaysa. Ruushka ayaa gantaalo culculus ku garaacaya magaalooyinka waaweyn ee ku yaala waddanka Ukraine. ma jirto ilaa iyo hadda wadahadallo dhab ah oo laga dhex wado dhinacyada dagaalamaya, balse waxaa lagu wadaa in maalinta Salaasada ah oo hal maalin oo qor ay ka harsan tahay in xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu gaaro magaalada Moscow ee caasimadda waddanka Ruushka, halka maalinta Khamiistana uu tagayo Kiev oo ah caasimadda dalka Ukraine. halkaas ayaa waxaa laga dareemayaa ama dadka diblomaasiyadda falaqeeyay sheegayaan in ay ka soo ifeyso natiijo wanaagsan. wixii warar ah oo daawadayaal ku soo kordha barnaamijyadeena xiga ayaan idinkugu soo gudbi doonaa. muuqaalkan daawadayaal halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. haddii aad daawatay ilaa iyo dhamaadkan ay nala joogtay laag inoo saar muuqaalka, siina sheer garee daawade si uu u gaaro saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale. sidoo kale daawade inagu soo biir subscribe inoo saar channelka Fura Gambaleelka si durbadiiba ay kuu soo gaaraan muuqaalada aynu halkan ku soo baahino. waa ku mahadsantahay daawade la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba. tan iyo warbixintan mid lacayna intaynu dib isugu kulmi doonana nabadgelyo.